السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله waxa aad ugu xumahay gabadhan waxa loogu sameeyay aad iyo aad ayaan ugu xumahay waayo ma wanaagsana gabar muslim ah oo maanta oo dhowrsan in lagu xadgudbo ma wanaagsana oo wax sahlan ma ahan idan waxaa la rabaa qofka muslimka ah qofka kale walaalkiisa gacantiisa inuu ka nabad galo carabkiisa uu ka nabad galo sida nabigu uu yiraahday al-muslim من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم waxaa la yiraahdaa muslimiinta ee marka ay ka nabad galeen carabkiisa iyo sidoo kale waxaa laga nabad galay ee gacantiisa ayaa laga nabad galay maanta anaga maxaan sameeynaa dumarkeeni ayaan ku xadgudbeynaa dumarkeeni ayaa sharaf dhac marka aan u geysanayna dumarkeeni ayaan fool xumeynayna idan waxaasi ma hormar ma u aragnaa walaalayaal ma hormar ma arago waxaas hormar ma ahan war waxaas wax oo marka heer sare lagu gaaray ma ahan war waxaas wax lagu faano ma aha hada waxa laga yaabaa aayigu falka sameeyay ku sheekaysanooyin anigana soo dhaxgalaysaa anigana saayeen inay ku faraxsan yihiin laga yaabaa idan waxa sameeysan wax wanaagsan ma ahan waxa sameeysan wax diinka ka hor imaanaya wax islaamnimada ka hor imaanaya wallahi qof raga sheegaysanaysa sharafku ma aan qof dumara in dulmiso aad arintaasi aad u geysato sharafku ma aha iyo sidoo kale inaad faanto sharafku ma aha dumarkaas sida qaabdara aad u gashin inaad ku faantaan ma ahan idan waa qalad weey waxa sameeysan waa wax weyn walaada qofta muslimka ah oo muslimka waxa la rabaa gabadha oo marka muslimada marka ah in gacantiisa aysan taabanan gacantiisa uusan u dhabaynin وأجنبي أي كليهن إذا كان محاس ميسن بل إسكده درعيك آيات تاريخنا والعياذ بالله بسم الله مكا روحان إسك إلاليا والرجو وحاس ميسن وحنا يكسن معهن والضمر إذا كان واحد إذن ليهي والرجع على صاحب يسن كن يكوجر إسكافيريا الرجو وحويه كان شرفت هذا إلالينا يكاس أرجع كان مانتا وكا إلالينا يو waxyaalaha fooshool kaas ayaa rag ah iska ilaaliya raggan qaab darada aad dhaxgalaysaan iska ilaaliya kale waxa leeyahay aad ayaan ugu xumahay gabadhan waxa ku sameeyeen aad ugu xumahay laakiin raggu iska ilaaliya raggan foolxoosh ay sameeyeen ayagana waxa loo baahan yahay inay faldambiyeedka noocaas oo kale inaysan mar aysan uga laaban oo Allah subhanahu wa ta'ala ugu toobad keenan ayaa markaa loo baahan yahay sidoo kale raggu waxa idin leeyahay maanta waxaad geysato ayaa adigana gabdhahdii loo geysanaya gabadha maanta waxaad u geysateen wallahi arin sahlan intaas oo rag ayaa caloosha ka hortay intaas oo rag ayaa xanaaqday ee maanta u fufukunaya inay idin dilaan ee idin laayaan balse waxa reebaya diinka ayaa markaa reebaya idan iska ilaaliya maanta hadii aad dumar aysan kula dhalanin laakiin marba ama jirkaagu ka soo go'i doona ama mid adiga aad jeceshahay ba waxaas lagu sameyn doona oo habartaada marka ku dhashay aabahaada marka ku dhalay ayaa waxaas lagu sameyn doonaa sida marka aad u hadlaysa sida marka hadal uu ku banaayay markaas rago iska ilaali qaasatan raga oo marka mar walba dhaqan ka dhigtay inay dumarka si walba ay ka yeeshaan dhaqan ka dhigtay ayaa marka la hadlay rago marka waxa idin leeyahay iska ilaali ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada maanta naftaani oo kugu jirto yeesan ku siran iftiinkan yeesan ku siran yaa waa dhamanaysa sidoo kale dhimashadu waxa ka soo hore waxa laga yaabaa ilaahay inuu cudur kugu salido ka hor oo fool xumada qaabka ujrinta aan fiirin kana ilaahay aan ka cabsano ilaahay ugu toobad keen waxa maanta sameynay arin wanaagsan ma ahan gabadhan sharafteedii waad ku tumateen oo sharafteedii siro aakishteen laakiin gabadhan sharaf dar uma aha waayo waxa san yeelay waa rag ay iyada marka ka tan badan weey waa iyada waa kontonle waan hal qof weey intaas oo rag kuma aadi karto laakiin waxa laga rabay intaas oo rag waxta waa laga waayay hal rag oo ka soo dhaxbaxo oo gabadhu micna ka qabto waa laga waayay idan wallahi waa nasiib darweey rogo waxa idin leeyahay horumarkan sameynaysan hadda horumar aad u aragtaan tan macna horumar hadda idin tahay wallahi adduunyo ba idin sugaysa
idan dumarkii sharaftooda lagu dheela hadduu horumar aad u aragteen iyo fanfana aad u aragteen wallaahi baan ku dhaartee waxa idin sugayo waqtiyo idinkana aad ooy doontaan aa idin sugayo ninka ilaahay subxaana watacaala oo sharafka oo muslimku uu dhowrwa allah subxaana watacaala asana sharaftiisa dhowri maayo ninkaas idan han iska ilaalino qaladaadkaas noocaas oo kale ilaahuna walxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allah wasalam